waxay dileen aabihiisa, waxay dhaceen hantidiisa oo dhan. Asagana wuxuu dejiyey qorsho ugu arguto oona hantidiisa ugu soo ceshto. Wuxuu degaa qorshaan innaba caadi ahayn. Sidaas kula daawana filinkeena maanta kusoo dhawaada janaalka oo subscribe iyo like noo saara si aan u gaarno kun subscribe. Adiga keliya ayaa ka dhiman subscribe-ka ee kusoo dhawaada filinkeena. bilowga filinkeena waxaa arkaynaa magaalo aad u qurux badan. Magaaladan waxaa ka taliya nin lagu magacaabo Roy. 20 sano ka hor wuxuu la shaqayn jiray Devrajna wuxuu ka ganacsadaa dahabkii wax kastoo ganacsi ah. Sidoo kale ganacsigooda oo dhan isaga ayaa gacanta ku hayo. Ugu dambeyn waxaa gubanaya hantidooda. Kadibna waxay go'aansanayaan inay si caadi u shaqaystaan. Waxay soo aadayaan Thailand oo halkaas ay si caadi uga shaqaysanayaan. Kadibna ganacsigooda si aan caadi ahayn ay ballaarinayaan. Waxayna go'aansanayaan inay Hindiya dib ugu soo laabtaan. Way ka fureen shirkad koronto ah. laakiin qorshahaas waxaa diidaya oo kasoo horjeesanaya wasiirka oo dhahaya dadkan waa gaangaystaro waana diida, laakiin dadkan awood aan caadi ahayn ayay lahaayeen. Markiiba waxay amar ku bixinayaan in wasiirka loo keeno. waxaana loo keenayaa wasiirka, waxaana lagu dhahayaa go'aankaad qaadatay ka laabo. uu diidayaa isla markiiba gacanta ay ka gubayaan xanuun darteed ayuu saxiixa. ugu dambeyn sidaas ay Hindiya uga soo qayb galayaan. ninkii Roy ahaana aad ayuu ugu faraxsan yahay, wuxuuna u hambalyeynaa dadkii la shaqaynayay. kadibna gaarigiisa ayuu soo qaadanaya asagoo la hadlaya wiilkiisa oo ka maqan ayaa shil lagu dilaa. markiiba hantidiisa u soo saarnayd markab ayaa hal mar la qarxina. kadib markii 3 isbuuc ka soo wareegtay ayaa waxaa arkayna saldhigga waxaa loo soo sheegaya in 3 milyan oo lacag ah la xaday. qaabka loo xaday waa qaab la yaab leh. ninkii xalay lama yaqaano, dad ayaana lacagtiis ku dhiidhiibay. dadkana markaas waxay dhahayaan annaga waana lala soo hadlay. midkii koowaad ayay soo qabanayaan wuxuuna dhahaya inta magaalada way ugu xumeed oo meel kasta lacag ayaa laygaga lahay. kadibna waa lala soo hadlay waxaana laygu dhahay lacag ayaa kuu soo diray ay boorsooyinka baabuurka ka qaadaya halkaas dhig. anigana intii ayaa sameeyey. mid kastana sidaas ayuu dhahayaa. askarigii wuxuu sameeyay ayuu garan weynaa, wuxuuna caawimaad ka dalbanaya askari lagu magacaabo David. wuxuuna ku dhaha waxba ha isdaalinin, arrinkan waxaa xalin kara nin lagu magacaabo Ashok, waxaana loo xilsaaraa shaqadan oo arrinkan asaga ayaa si fiican u xalin kara. kadibna waxaa arkayna in shaqadiisii ugu horreeyay uu qabanayo ninkan oo lasoo afduubtay ayuu badbaadinaa asagoo la dagaalaya niman xoog badan, laakiin kulli wuu ka xoog badinaa. ninkiina wuu soo badbaadinaa wuuna wareysanaa. kadibna waxaan arkaynaa shirkadii Roy ahayd dhammaanteed way yaaban yihiin, waxaana loo soo sheegayaa hadal ay ka naxaan oo ah inuu nool yahay wiilkii Roy. waxayna u maleeyeen 20 sano ka hor oo dhintay. kadibna ila ka taqaana caadihin ayuu kusoo diray, wuxuuna dhahaa ciddii aabay dishay kama haraya meel kasta ay galaan. kadibna waxaan arkaynaa askarigii Ashok ahaa wuxuu imaanaa meeshii dembi baarista lagu sameynayay. kadibna wuxuu ugu faaloonaa si aan caadi ahayn dembiga oo aad u maleysaday inuu asaga dembiga geystay. ninkan gabadhan oo loogu magacaabo Amir oo meesha ka shaqaysa waxay ka helaysaa siduu wax u sharaxayo, asagana ayada ayuu ku mashquulsan yahay quruxdeeda oo labadooda way iska helayaan. dhanka kale waxay u wareegaysaa tuug caqli badan oo si fudud u hado lacaga iyo wax kastoo qayli ah. dhanka kale waxaa arkayna shirkadii Roy oo dadkii lacagta ku maalgashay dhahayaan noo sheega cidda inuu lacagteena ku aaminayno. meesha waa laisku qabsanaa oo buuq ayaa ka dhalanayo. kadibna Shifa ayaa soo galaya wuxuuna u sheegayaa lacagtooda meeshay taalo, wuxuuna dhaha kursigan kuma fadhiisanayo ilaa aan ka ogaada aabahey wuxuu u dhintay iyo cidda ka dambeysay dilkiisa. dhanka kale Devraj ayaa ogaanaya arrinka Roy wiilkiisa wuuna ammaanaa, laakiin wiilkiisa ayaa ka xanaaqaya wuxuuna dhahayaa aaba anigoo jooga sidee ninkaas ku ammaane. ninkaas ay sheegaysa aniga ayaa bedelay dahabkiisa gacanta ku dhigay. ugu dambeyn Shifa wuu soo baxa waana la soo weerara, laakiin wuu dagaalama uu iska celinaya ciidankii Devraj. dhanka kale Amirta iyo Ashok iyo ciidanka kale waxay ogaanayaan halka uu tuugu joogo, isla markiiba waxay soo aadayaan meesha kafeega oo tuugu joogay. kadib David ayaa la hadlaya tuuga wuxuuna u sheegaya inuu meesha ka baxsado. David khiyaanoola ayuu noqday oo la wajiila ah, cidna ma ogo. markay meesha tagaan cidna kuma arkayaan, way iska soo baxayaan. meesha dhanka miqada way wala cileeyeen. dhanka kale waxay imaanayaan shirkadii Roy. Fufaan wuxuu u sheegaya in sanduuqa ay ku jiraan lacag aad u badan oo la xisaabin karin, laakiin si sanduuqan loo furo waxaa loo baahan yahay sanduuqa madow, wuxuuna yaalaa Bombay. gabadhan oo lagu magacaabo Kalki ayaa dhehaysa aniga ayaa soo qaadayo. habeenkii markii la gaaro waxaa arkayna Ashok iyo ciidankii Devna oo la socda waxay ogaanayaan in halkan uu joogo ninkii tuuga ahaa. kadibna Ashok ayaa arkaya oo gooni ula fadhiisanaya, kadibna cabitaan ayuu iska badinayaa. markaasna wuxuu u sheegaya inuu rabo in sanduuqa madow gacanta ku dhigo, markaasna uu dib u noqdo si uu lacag aan caadi ahayn u helo. maalintii xigtay wuxuu la kulmaa taliyaha wuxuuna arkaa in janto uu haysto ay qayb ka maqan tahay. taliyihiina wuxuu dhahaa haddii jabkeeda kala leelad si aan caadi ahayn ayay ku soo baxe.
sidoo kale wuxuu dhaha waa inaad sanduuqa madow aad gacanta kusoo dhigtaa, aniga waxaa qabaa inaan shirkadda Roy aan baabi'iyo. Dhanka kale gabadhii kalkii waxay soo aadaysaa meesha sanduuqa lagu tilmaamay, kadibna way soo qaaday sanduuqa, laakiin markay soo laaban qabtay ayaa qolo mooto wadato soo weerarey, laakiin amiirta ayaa u soo xaqiiqaysa si ay u badbaadiso, laakiin way ka badnaayeen ayada ayaa halis gelayso. Kadibna waxaa kasoo gaaraya Ashok, asaga ayaa ciidankii la dagaalayo. Kadibna gabadhii kalkii waxaa loo soo sheegaya in boorsada ay meel ku qaqiso, laakiin intay meesha sii gelaysin ninkii David ahaa ayaa kor kala socday sanduuqa madow. Markii habeenkii la gaaro amiirta waxay u sheegaysaa nolosheeda iyo inay waalidkeeda ayadoo yar dhinteen. Kadibna Ashok ayaa jacayl u sheeganayo, ayadana aad ayuu ugu farxay oo faraanta ayay siinay, waxayna ka codsanayaan inuu marno uu ka fogaan. Kadibna dhammaantood hal meel ayay iskugu imaanayaan. Ashok ayaa dhahayo waa inuu tuuga asagoo howsha gacanta kula jira aan qabanaa, laakiin kooxda waxaa khiyaanaya David asagoo miiska hoostiisa samiicad ugu dhejiyey. Kadibna tuuga waxay ku hadlayeen oo dhan ayuu maqla, wuxuuna go'aansanaya inuu sanduuqa gacanta ku dhigo. Dhanka kale waxaa arkaynaa taliyaha, wuxuuna la shaqeeyaa Devraj wiilkiisa, wuxuuna u sheegay warbixinta ciidankii Devraj lacagtii dhan ayay qaadanayaan. Ninkii tuuga ah meesha ayuu imaana, wuxuuna arkaa lacagtii oo la wada qaatay. Haddana David ninkii uu la shaqaynaya ayuu sii qiyaama, wayna soo bogsanayaan. Taliyaha waxaa soo wacaya ninkii Kisri, waxaana loo soo diraa sawirka ninkii la shaqaynayay. Markuu arkay wuuna naxay, tuuga waaba ninkii la rabay inuu booska Ashok u galo. Taliyaha markaas ayuu dhaha waa maxay ninkan nala joogo. Waxaa arkaynaa ninka Ashok inuu wax kasta kaamirada kala socdo, asaga ayaa waxaan ka dambeeyey. David ayaa wuxuu u fududeeyey in askari uu noqdo. David iyo asaga way wada shaqaystaan, kadibna gaarigiisa ayuu soo qaadanaa. Ninkii filimka bilowgiisa la raadinaya ee lacagta xaday waaba asaga. Markaas ayuu ninkii askariga ahaa ayuu gaariga marba dhinac ugu dhufanaa, ilaa ugu dambeys oo shil galeen. Ninkii askariga ahaa asagoo toogan rabo Ashok ayaa waxaa kasoo gaaraysa amiirta iyadoo isdhehayso Ashok tuuga ka badbaadaya. Waxaa loo sheegaa in ninkan askariga saxda uu yahay. Filimkana weji cusub oo khiyaano ayuu yeelanaa. Amiirta shaqadeeda ayay kusoo laabanaysaa, waxayna arkaysaa farantigeeda oo meesha loo saaray. Shafan waxaa loo sheegaa in sanduuqa la xaday, asagana wuxuu dhaha GPS ayaa igu xiran. Markaas waxaa arkaynaa Sahu asagoo waqtigiisa iska qaadanayo ayaa waxaa loo soo bandhigaya heshiis sanduuqa madow, laakiin wuu kasoo taga wuxuuna imaanaya hoteelkiisa, waana lasoo weerara. waxaana soo weeraraya amiirta, wuxuuna u sheegaya inuu weli jecel yahay. waxaana waa wax iska dhacayadan waxay iska dhigaysaa inay aamintay, sababtoo ah qorshe ayay ka leedahay, waxayna la shaqaynaysay askariga saxda ahaa. maalintii dambe ayagoo isla joogaya waxaa soo weeraraya Devraj wiilkiisa. amiirta ayuu si xun u dhaawacaa, Sahuna uu garaaca, wuxuuna wadanaa amiirta, wuxuuna dhaha waxaa qabaa inaad ii keentay sanduuqa madow. meeshana uu iskaga soo taga, wuxuuna soo wada gabadha, wuxuuna ku dhaha haddaad sanduuqa ii keeni weyso waan dilaa, laakiin gabadha waa la badbaadina. oo Shafan ayaa ciidan u soo diraya, wuxuuna ku dhaha sababtaan gabadha u badbaadiyey waxaa weeye ninka sanduuqa madow ayuu ugu soo wareejin rabaa. ugu dambeyn wiilkii Devraj wuxuu arkaa hantidiisa oo dabaqa dhanka dhex bixayso, dhulka ayay tegay, isla markiina gawaari ayaa qaadayso. booliiskana way ogaanayaan maadaama ay meel kasta kaamirad ku xiran tahay, wayna dabagalayaan. si waali ayaa loo waday gawaarida, wax kasta ay ku joojin karaan ayay isku dayayaan. taliyaha waa lasoo waca, waxaa lagu dhaha hantideeda ayuu baabiiyo, waa inaad dishaa dahabkaygana aad ii soo celisaa. gaariga waa la qabanaa, Sahuna mid ayuu la dagaalaa, qalabkii uu ku duulay ayuu gashanaa si uu u badbaadiya amiirta oo dhici qabto wuuna badbaadina. kadibna Sahu waa la qabanaa, taliyaha ayaa soo wadaya, weliba wuxuu keenaa meel kale si oo loo dilo Sahu. kadibna waxaa arkaynaa wiilkii Devraj oo abiisa la hadlayo, waxaana ogaanaynaa in tuuladaas ay tahay tuuladii Roy markasta uu difaaci jiray, laakiin asaga ayaa inuu tuuladii tagay ayuu dadkii baabiiyey, wuuna xasuuqay dadkii calankooda hoos ayuu u dhigay. sidoo kale ciidan aad u badan oo xoog badan ayaa meeshuu joogo. Sahu ayaa ciidankii garaacayaan, ugu dambeyn uu iska celinaa oo hal ayuu dilaa. dhanka kale kalkii ayaa arkaynaa sanduuqa ayay soo qaadanaysaa, ayadoo tegaysa keligeeda inay hantida qaadato ayay rabtay. kadibna gudaha ayay u soo gelaysaa, markaas ayay waxay arkaysaa sawirka Roy iyo Sahu. Sahuna waa wiilka Roy, waxaana ku dhigaysa neefta weyne neefsa weyne oo meesha ayaa kusoo xirmayso. dhanka kale Sahu ayaa arkaynaa ciidankii Maya ciidan kale ayaa soo weerarayo, sababtoo ay tuulada Roy ayaa wax kasta siin jiray. calankii dib ayay u soo taagayaan, ciidankii cadowga ku ah si xun ayay u dilayaan. kadibna Sahu ayaa dhahaya aabey ayaa dishay, maanta waa maalinteeda, meeshaas ayuu ku dilaa. kadibna wuxuu imaanaya shirkadii, dadkii oo dhan way soo dhaweynayaan, waxaana ogaanaynaa in wiilka saxda Roy uu yahay Sahu. sidoo kale qof kastoo khiyaanoola ah oo shirkada khiyaani jiray wuu dilaa. shirkada sidaas ayay horumarkeeda u sii horumaree. amiirta ayadoo fiirinaysa horumarkii shirkada ayaa gadaasheeda ka arkay Sahu, uuna u sheeganaya jaceylkiisa oo meeshaas ayay ku midoobayaan. filimkeenana intaas ayuu ku egyahay. weli janaalka haddaad subscribe fadlan subscribe iyo like noo saar.